maalmahan waxa ka socday kacdoon shacab waxaana fidno iyo faragelin ku haya dawladda federaalka ee Soomaaliya dadkuna waxay ka gododsan yihiin ama ay cabasho ka yihiin maamulkii Hirshabelle ee labaad ee mar dhow lagu soo dhisay Jowhar waxay aaminsan yihiin inaysan ka qayb gelin laga tala gelin waxba aan looga habaynin ayagoo marka afkaartooda iyo darankooda iyo shucuurtooda si nabad ku soo bandhigaya la isku dayin la caburiyo kadibna kacdoon culus ee shacab ayaa meesha ka taagan wax kalena ma ahanay dadkaas waxay rabaan dareerkooda si nabad in ku soo bandhigaan dawladuna jajub iyo amar ku taagleyn iyo waxa ay wadaan inay si sanka in ka baran ama ay ku sanduulayaan dadka Hiiraan ay rabaan dadkuna arrinkaas waa ka gododsiin mana ogolo waa xaqiiq in ugaaska uu hadda muddo uusan arrimaha hadda ka taagan Hiiraan iyo guud ahaan processkii dib loogu dhisay maamul cusub Hirshabelle inuusan ka hadlin dadkuna waxay ku barteen kii markii hore la dhisay inuu aad uga soo horjeeday baleer weyn ama nin door weyn kula oo ahaa dabcan ugaaskana anigu xaq uma lihi ama dhaqan ahaan ma haboona inaan wax ka sheego marka waxaan aaminsanahay arrimo u gaar ah inuu uga gaabsaday saasaan aaminsanahay inkastoo ay habooneeday xilliga oo dadkiisu xaalad adag ku jiro inuu garab istaago tala muuqato oo hadda xaaladda lagu dejinayo ka qayb qaato laakiin hadda anigu ugaaska sababtu uu arrimahan uga aaminsan yahay wax badan kama sheegi karo Cali Guudlaabana waa caddahay inuu meesha fidna ka wado Cali Guudlaab waxa lagu doortay Jowhar caasimadii waa Jowhar haddii madaxweyne la calaamad saarayaan madaxweyne meesha lagu doortaa lagu calaamad saari jiray xoogaa sanka taabasho iyo provocation ama daandaansi ayay u muuqataa safarka uu ku tagaayo beledweyne asagoo og inaana dadka beledweyne aysan marnaba raalli ka ahayn wixii lagu soo dhisay Jowhar ninka uu diro madaxweyne ku-xigeenka meesha uu ka soo jeegana markuu meesha ka tagay oo yiri riyo caanama diiday ana san ka gelnaa waliba ayadoo la hanjabay la dhaartay si fiican aan markii hore to degan loola hadlin dadka in haddana la yiraahdo meel uu og yahay inuu raalli kan waa leegu calaam saaraya taas waxay la tahay waa horseedaya khalaaso mas'uuliyad fiican ma muujin haddana walaalkii Cali Guudlaab waxaan leeyahay madaxweyne waa lagu doortay cid hadda ku dhahaysa madaxweynenimada dhig ma jirto hadduusan asagu iska dhigayn meeshaas dadku waa gadodsan yahay dadkana xilliga uu kacsan yahay loogama sii daro dabshidana baasiin lagu mashido marka waa ku raacsanahay inuu qayb ka yahay dhibaatada ka taagan magaalada beledweyne ama door weyn uu ku leeyahay qaska beledweyne ka taagan Cali Guudlaab xalku wuxuu yahay wax kasta oo meeshaas ka dhaca annaga horta waxaan u haysanaa koobkii shaaha ku daata beledweyne waxaan u haysanaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax kasta oo meeshaas fidnaha ka dhaca ayaga haysanaa waxaan leenahay dadkaas walaalnimo iyo wada jir iyo wada hadal ay wax ku leeyihiin yaan la isku dirin waana dad hel ah wardadiyo dawladdan waqtigeedu dhamaanaysa isu keen dirin midnimadiina iyo walaalnimadiina ilaashada nabadiina iyo xasuuladiina ilaashada waxyaabaha idinka dhaxdiina yaalo oo aad kala tabanaysaan si nabada ku dhamaysta